waa fanaanka Khalid Kamil oo si xun loo jir dilayo halkan waxa idinkaga muuqata Khalid Kamil oo laga soo degsaday gaariga isla markaana ciidanka Somaliland ay si xun u jir dilayaan waa fanaankii weynaay ee Soomaaliyeed oo xitaa lagu ixtiraami waayay warqofkani waa fanaan ee sidan ha u dilinina ciidan gaaraya 10 nin ayaa isku haya sida aad u jeedaan ninka soke waa uu ku istaagayaa fanaanka waana uu ku tumanayaa subxaanallah waxaan ku tusi doonaa Khalid Kamil gaariga waxa uu watay markii hore gaarigan cad ee markii dambe lagala soo degi doono waana kana gaariga booliska agyaala oo ugu dambeyn ay kala soo degi doonaan si xun ayaa loo dilay fanaanka isla markaana waxa lagu tuuray xabsiga weyn ee Hargeysa wuxuuna ku xiran yahay maalintii 12aad asagoo aan wax maxkamadda la soo saarin isla markaana maxkamaddii laga joojubay oo laga qariyay kadibna si hoose loogu hayo xabsiga fanaaniinta Somaliland ayaa isku dayay inay ka hadlaan balse waa la afduubay sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa waxa Khalid Kamil lagu haysto waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa qofkii Khalid Kamil shirqoolay ee heestii aan wali soo bixinin u gudbiyay ciidanka Somaliland fanaaniintii xidigaha geeska fanaan kamid ah ayuu ahay fanaankii ka xaday heesta Khalid Kamil ee u sheegay inuu soo wado markii uu xamar ku laabto fasixi doono heestan balse ciidanka Somaliland isla markii u yimaadeen Khalid Kamil sidan arxanka diinta iyo dhaqanka ka fogna ay u garaacayaan subxaanallah أبنا دي سلامنا أنا محمد عبد الله عاوز لتشوفنا أبن إجازة سلام يا دمان أصحاب المستوى تعالوا بتشوفنا يمكن الوالد بعوض يصوب ضياء أنا راح حنوقف وقف يعني الحمد لله قدر الله اللي يقول الحمد لله الحمد لله أيوة الوالد والله وكوفي عن حي markay inuu isxog wareysanay inuu arrimihiina ka gudubnay su'aal yar qurux badan oo caawis weydiisay أبن شاكر qurux badan oo sheekaysan su'aal yar muhiim ah isla garanay jirta bulshadu aragtidooda ka dhiiban doonaan laakiin anagu waan isla garanay reer burco عبانا وسوى الشعري reer burco way soo wada jecel yihiin هل قفهم بين عبي qofkaas inuu Khalid Kamil qodobkaas qurux badan ayaan isku Khalid Kamil si la yaab leh ayaa loo shirqoolay ugu dambeyntiina shirqoolkiisii waa lagu guuleystay kadib markii uu soo saaray heestan oo ahayd hees uu ku taageersanay ciidamada ka dagaalama Falastiin ee muslimiinta ah isla markaana uga soo horjeedo Israa'iil balse ciidanka Somaliland ayaa isla markii heestan oo aan soo bixin loo gudbiyay si hoose ayaana Khalid Kamil oo aan markaas diyaar u ahayn asagoo Somaliland jooga inuu soo saaro heesta ayaa si hoose looga gudbiyay kadibna ciidanka ayaa u soo daatay Khalid Kamil oo gaarigiisa ku dhex wata Hargeysa waxa uu ku dhaheen soo deg oo dhulka imaaw balse Khalid Kamil iyo wiil kale oo isla socday ayaa isku dayay inay wax yar is adkeeyaan isla markaana ay yiraahdaan adinku yaa tihiin aan soo degnay iyo waxyaabaha saas oo kala ah isla markii waxa dhacday arrin la yaab leh waxaana lala soo degay Khalid Kamil dhulka ayaana lagu jiiday si xun ayaana loo bahdilay isagoo oo bahdilan isla markaana anka lagu ixtiraami waayay wax yar oo ah war qofkani waa fanaan Soomaaliyeed una dhashay Somaliland iska sii daaya ayaa ugu dambeyntii wax loo gudbiyay xabsiga weyn ee Hargeysa halkaasi ayuu hadda liinta ku cabayaa alooqii alilaahiyo ciidankii Somaliland ayaa hadda noqday baqti cunayaal bal u fiirso mar kale waa askari Somaliland isla markaana wiil yar ku qasbaya qabiilka uu asagu yahay isla markaana dhahaya sheego wariyaa qabiilkaasi hadii kale 5 xabadood ayaan kugu dhufanaya ويدا سيلك لا بربرة بربرة يا ويسمو صدق ويدا نعلك ياله حور ولا مخلوط باته مخلوط بان هيدا مخلوط بان هيدا آريا أنت أصلا مخلوط بان هيدا يا ده ويدا وس والله هديك لا كسر كاتوريا ماشي وذاك سوا عبد الله استاديوم وين وقنا عبد الله خير بلي وكاب بربرة محل هذا يا Somaliland wararka ka imaanaya waa warar aad isku soo dabataraya isla markaana iska daba imaanaya Somaliland ayayna u badan tahay hadeertaan in xataa qaab qabiil aysan ay iskaga dhax bilaabaan isla markaana isbaabi'iyaan haddii sida wax u socdaan aan laga hortagin isla markaana aan la qaban
ciidankan halkan ordaya aad u jeedaan waa ciidan haddeertaan la sheegayo in loo tababaro dadka inay soo qabtaan isla markaana dadka dhibaateeyaan oo kaliya ma ahan ciidan tababar saa'id haysta balse inay dadka dhibaateeyaan oo dadka nafta u keenaan ayaa lagu tababarayaa halkan ha ahaatee Khalid Kamil hadda xaalad halis ah ayuu ku jiraa ilaahay ka soo badbaadiyo Somaliland ayaa si bahdilan u xirtay fanaanka weyn ee Khalid Kamil